magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed axmed daanto ayaan ku magac dheerahay. waxaan ahay odayaasha qurba joogta murtida odayaasha aaron xasan joogta stateka minnesota la yidhaahdo. waxaan umaleeyaa khadka waxaa lagugu soo xiray inaanu maaragtay fikirkayga ka dhiibano dadkuna maqlo haddee baa xugmaayo aanu ka dhiibano codkeeda arrinta yacni lagu sheegay caanatubka oo boocana ka dhacday. waxa weeye arrintan waan ka xunnahay sababtoo ah burburka iyo fidmada yacni maaragtay ilaa waktigan haddee baa marba meel ka bilaabanaysa dhibaatooyinka yacni dabada ku haysa haddee baa xugmaya aanaan raalli ka ahayn ciddii kastoo yacni maaragtay maanta khaasiyan marka dhulbaanta la eego aanan raalli ka ahayn burbur hor loo hadda yacni loo horseedo dadka inaanu codkayga ku muujino weeye baan umaleeya sida khadka lagugu soo xiray. markaan arrinta dhex galo waxa weeye arrintan waad ogtihiin dhulbaantani wuu ogyahay reer artida damina wuu ogyahay beesha xasan ugaas waxay leedahay ugaas bay leedahay. ugaaskana waxaa la yidhaahdaa cabdillaahi ciise nuur baa la yidhaahdaa. ilaa waktigan la joogo ilaa waktigii aanu dooranay oo haddee baa xugmaayo aanu xasan aanu dhexdiisa ka soo saaray ilaa hadda isagaa ugaas noo ah. beesha aanu xasan waxaan idiin caddaynaynaa inayan lahayn ugaas kaleeto inayan lahayn haddee baa xugmaayo cid kale oo yacni maaragtay sinimo ku matasha sidaasaanu idiin caddaynaynaa. waxaan hadda la wadoodaana waxa weeye qoys yaroo haddee baa xugmaayo anugu hadda yacni waxay u jeedaan aanan garanayn oo yacni maaragtay burbur iyo haddee baa xugmaayo fidmo dabada ka wada. waxa weeye arrintaas waxaanu idiin caddaynaynaa oo idiin sheegaynaa oo dhulbaantoo dhan u caddaynaynaa oo caalamkoo dhan u caddaynaynaa in ugaaska beesha xasan ugaas inuu yahay cabdillaahi ciise cid kalena ayaan matelin. sidaasaanu idiin caddaynaynaa. waxa weeye waa danaha uu naleeyahay waa burburka yacni waktigan yacni maaragtay dowlad la-aanta marba meel ka soo baxaya waxani haddee baa xugmaayo yaan loo dhega taagin yaan haddee baa xugmaayo la rumaysan yaan beesha harun xasan yacni maaragtay meel lagaga dhicin oo la oran yacni ugaaska leeyihiin. sidaasaanu idiin caddaynaynaa sidaasaanu idiin sheegaynaa gudaha haddee baa xugmaayo iyo dibaddaba dadka jooga dhulkii iyo dadka gurba joogta ah oo hadda yacni codadkooda aad maqli doontaan sidaa kaygan u maqlaysaan waxay idiin caddaynayaan nooca haaruun xasan nimanka la yidhaahdo waa 5 jilib weeye. 5ta jilib xugmaayo 4 jilib waxay ku nooshahay nugaal iyo doocan ay ku nooshahay jilibna xagga iyo koonfur iyo dhulkaasu ku milmay. dhammaantood waxay yacni isku raacsan yihiin oo ka midaysan yihiin ugaaskooda cabdillaahi ciise waana jecel yihiin waana u isin wax daloona matalaa ma jiraan. sidaasaanu idiin caddaynaynaa waanu idiin sheegaynaa. 4 caaqil buu leeyahay haaruun xasan. 4tooda caaqil iyo haddee baa xugmaayo guurtidoodii iyo ugaaskoodii iyo qurba joogoodii iyo meel kastooyiga oo dabadhilfu ah nimanka soomaali diidka oo la soo siiyey baabkii oo la leeyahay meeshii ugu dambaysay
waana maqlaynay aad baanu uga xunahay haddii aanu nahay qurbajoogta beesha Boocame waxaan Cabdullaahi Ciise ahayn oo aanu aqoonsanayno ma jirto dadka wax magaratada ah ee lagu qalday arrimahaasna waxaan u sheegaynaa oo ka tirsan beesha Boocame inay arrintaa ka waantoobaan waa fidno waa kala qaybin waa baabi'in beesha wadajirkeeda iyo magaranaysaa horumarkeeda iskama garan dadka waxaa lala soo dhiibayo ama ma ay oga dhibaatada ay u keenaysa beesha markaa waxaan oranaynaa oo aan anugu oranayaa ha ka waantoobeen dhibaatada iyo faragelinta ay ku hayaan beesha Boocame mana aqbalayno mana yeelayno ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur ayaa beesha islim u ah ugaasa waana ka baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. magacayga waxaa la yidhahdaa Faysal Siriiq Ismaan baa la yidhahdaa waxaa jooga waddanka ka mid ah qurbajoogta waddanka Maraykanka joogta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinta tan ka soo socotay deegaankii Xasan Ugaas ee Boocame oo la yidhi waxaa la sareeyey ugaas fiiga baa la sareeyey si wararka ku sugaanayaan la soconno marka waxaanu ku ciidaya waxaanu caddaynaynaa oo aanu taageeraynaa in beeshayada Xasan Ugaas ay leedahay hal ugaas waanu aqoonsanahay waxaana weeye Cabdullaahi Ciise Nuur weeye ugaaska Xasan Ugaas mana aqbalayno mana qaadan karno mid wax kale oo ka soo haray isaga hadday ahaan lahaayeen raggii caaqilada ahaa hadday ahaan lahaayeen bulshaweynta ku nool dalkii hadday ahaan lahaayeen qurbajoogta intuba waxay isku raacsan yihiin inuu ugaaska beeshu yahay Cabdullaahi Ciise isla markaana waxaanu ka soo horjeednaa boqolkiiba boqol waxay ka soo horjeednaa arrintaas ay isku raacsan yihiin jaaliyaddu dibadda joogta iyo dalkiiba in ay arrintaasi tahay xaqdarro inay tahay geef lagu sameeyey bulshada inay tahay kala qaybin inay tahay arrin disaastar oo aan loo dulqaadan karin waana ka baxay. Salaamu calaykum.